maanta waxaan baran doonaa sida loo sameeyo motion blur. Ujeedaada ninkan ordaayo keliya wuxuu sameynaa waxa waaye ordkiisa waxa waaye qof ordaayo waaye, laakiin waxaa ka muuqdo markii sawirka la qaadayo oo kale inuu qof yacni xawaare ziyaad oo ku socdo inuu ahaa markii sawirka la qaadayo, laakiin saas anaga ka dhignay. marka haddana qaabkan see loo sameeyaa marka sawir qof ordaayo oo kale ama gaari ordaayo oo kale sida loogu daraa motion blur video marka waxaan ku baran doonaa taasaan ku baran doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Markaas darteed waxaan sameynaynaa sawirkan iga tir bataatan waxaan soo bixin doonaa mid cusub aan googlahan kala soo degay adiga soo degi kartaa. marka sawirkan waaye sawirka asalkiisa sidaan uu ahaa saa u jeediin waa sawir qof iska caadi ah wax yani effect ma ku jiro. marka sawirka haddaa idin tusaayo aan rabaa marka inaan ka sameeyo. marka kuwa waxaa sameynaysaa sawirka koobiyeyso horta control J kadib markaa sawirka aan koobiyeyno kuwa war shaqadaas qabo oo laba layer meeshaan i taalo oo koobi midka aan ka sameeyay. kadib intaas markaa sameysid alaab waxaa isticmaalnaa selection tool. kadib waxaad doorataa quick selection tool amba select option dooro. kadib select object aan doortay kadib asaa i doori doono waa kuwa i dooro ujeedaas qurux badan igu dooray. markuu sidan sawirka ugu dooro waxaan rabnaa marka sawirkan waa inaa hubeysaa kan kore oo layer 1 ugu qoran midkaas ay dooran hadda maaha midka background. marka midka kore maadaama ay dooran yahay waxaan sameyn doonaa marka add clip mask aan dhihi doonaa. add clip mask markaan dhaho wili waxba isma bedelin. kadib waxaan tagi doonaa filter aan tagi doonaa. filter markaan ka tago halkan kore fiir filter markaa tagtid kadib waxaa ka tagi doontaa halka ay qoran tahay comfort for smart filter. kadib ku weydiin doonaa yes okay dheh. kadib markaa okay dhahdid still wili wax isma bedelin. kadib marka intaas aad sameysid waxaa usoo laaban doontaa background-ka qaybta layer-ka koowaad oo background-ka dooro. kadib filter ku laabo. filter markaa ku laabatid waxaa tagtaa blur tag. kadib waxaa kasii tagtaa motion blur ka tag. kadib ku dhufo kadib automatically waa kuu qaatay asaas isgeeyo aad dhaw isticmaalo Soomaa. marka laakiin sawirka asalkiisa sidaan u ahaa kadibna hadda saan ka dhigno effect-taasaan ku darno oo u muuqdo qof aad u ordaayo xawaaro ku socdo. marka sawirdan oo kale marka inaad sameysid ama gaari ama wax hartaa ku sameyn kartaa. marka qaabkaas loo sameeyaa. marka insha Allah aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.